adduunyadu ma dhib la'a dhibkuna sidiisaba wuxuu tusaa qofka nicmada uu haysto inta ay la eg tahay. dhibku wuxuu ku xusuusiyaa waxaad ilowsan tahay ama waxa aad haysatid agtaada yaaleed yaraysanaysid. waxaa ilaahay nicmooyinkiisa ka mid ah inuu ina siiyey waddadii aan dhib kasta ku xallin lahayn. inta arkaysa ee fahmaysaana runtii aad bay u kooban tahay. haddaba ii oggolow inaan kula wadaago 6 qiso aad u kooban aadna u xeel dheer qof kasta oo mushkilad ay adduunyadan haysatana xaqiiqatan u noqonaysa xal. haddii eheladaada dad ka midihii ay ku dhaawaceen ama ay dareenkaaga wax u geysteen oo aad wax ka tabanaysid, xusuuso nebi yuusuf calayhi salaam. ciddii khiyaantay ee ceelka madow salkiisa ku soo riday waxay ahaayeen walaalihii. haddii waalidkaa uu xaqa kugu khilaafo oo kaa hor yimaado, hase yeeshee uu dareenkaaga dhaawac u geysanayo, aadna aad u dhibsanaysid waddada uu hayo, waxaad xusuusataa nebi ibraahim calayhi salaam iyo aabbihii aazar. haddii mushkilad aad u weyn ay ku haysato, hase yeeshee xalkeedu uusan ku muuqanin, waxaad xusuusataa nebiyullaahi yuunus calayhi salaam marka uu ku dhex jiray neberiga calooshiisa isagoo odhanaya laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin. haddii jidhkaagu uu xanuun dareemayo, hase yeeshee habeen iyo maalinba aad la ilmaynaysid, waxaad xusuusataa nebi ayuub calayhi salaam. sannado aad u fara badan ayuu xanuunsanaa, awlaaddiisii iyo xoolihiisii intaba waa laga qaaday, eheladiisa kuwii dadka ugu dhowaana way jareen, saaxiibbadiisna warkood baddaa. haddana marna kama uusan quusan ilaahay naxariistiisa. ilaahay wuxuu ku karaameeyey inuu u ballaqo albaabadiisa naxariista, kadibna awlaaddiisii iyo xoolihiisii iyo caafimaadkiisiba loo soo celiyo. taasu waxay tusaale kuugu tahay inuu allah subxaanahu wa tacaala awood buuxda leeyahay, dhibkana uu kaa saari karo. laakiin waxaa la fiirinayaa niyaddaadu sida ay tahay iyo sida aad uga falcelisid mushkiladan laguu keenay. hadday mushkiladi ku haysato, hase yeeshee albaab kasta oo macquul ay ahayd inaad uga baxdid uu kaa soo xirmo, waxaad xusuusataa nebiyullaahi muuse calayhi salaam markii fircawn iyo ciidamadiisii isa soo urursaday, habeen dhan ay soo safrayeen, kadibna nebi muuse iyo intii la socotay ay ugu yimaadeen meel xeeba aroortii goor hore. kadibna dhinacii uu barrigu ka xigay ama ay u fakan kareen nebi muuse iyo intii la socotay ay hareereeyeen oo ay soo oodeen ciidamadii uu fircawn watay. waddo uu kaga baxana aysan u muuqanin, dhinacanna baddu ay ka xigtay, dhinacanna cadowgu ka taagnaa. waxaad xusuusataa allihii amray nebi muuse calayhi salaam inuu badda ul uu sito ku dhufto, biyihiina uu kala joojiyo oo waddo uga jeexo, inuu weli nool yahay, dhib kasta oo maanta ku haystana uu kaa bixin karo. haddii eheladaada maangaabta ka midihi ay kugu jeesjeesaan, kadibna xijaabkaaga ay la yaabaan oo wax cusub oon hore u jirin inaad la timid ay ku arkaan, garka iyo sunnada kaa muuqata lagugu yidhaahdo shambari sheekh laguma noqdo, hase yeeshee taasu ay qalbigaaga aad u dhibto, waxaad xusuusataa rasuulkeenna xabiibkeenna sala allahu calayhi wasalam wixii ugu sokeeyey ee ugu cadowtinimada badnaa in ay ahaayeen adeeradiis.